tobanaan kun oo rayda ayaa ka cararaya xaafadaha lagu muransan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo Itoobiya tegay mudaharaad ka dhacay Muqdisho toddobaadka iyo dhextaalka wararka waxa idin soo gaarsiin doona anigoo ah Libaax Barqiye. Tobanaan kun oo rayd ah ayaa ka cararaya xaafadaha lagu muransan yahay ee waqooyiga Aleppo kadib markii iska horimaadyo u dhaxeeya ciidamada dawladda Suuriya iyo deegaanyahanada hogaaminayaan Kurdiyiinta ay sii xoogeysteen taasoo xumaysay xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta magaalada. Mas'uuliyiinta Suuriya ayaa Khamiistii uga digay dadka deegaanka inay ka baxaan meelaha ay ku jiraan dagaalyahanadu iyagoo u furay meelo marin u ah dadka rayidka ah isla markaana ka soo saaray waqti kama dambays ah oo ay dadku kaga baxaan ka hor hawlgallada military ee la qorsheeyay. Duqeymo istaba joog ah ayaa la maqlayaa iyadoo qoysasku ay ka soo baxayaan xaafadahooga. War laga soo xigtay mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa sheegaya ku dhawaad 140 kun oo qof in ay ku barakaceen gobolka Aleppo. Shaqaalaha samabixinta ayaa sheegaya in qaar badan oo ka mid ah kuwa cararaya ay yihiin kuwa aad u nugul. Tiro badan oo dad ah ayaa sidoo kale maanta baxay kuwaas oo lagu qiyaasay 11 kun oo isaga cararaya guryahoodii, ayuu yiri Maxamed Cali, agaasimaha howlgelinta ee gobolka Aleppo. Waxaa jira boqolaal dad oo ka mid ah oo qaba dhibaatooyin caafimaad oo adag, dad waayeel ah, haween, caruur, ayuu sii raaciyay. Labada dhinacba waxa ay soo sheegayaan dhimasho rayd ah. Ciidamada Kurdiyiinta ayaa sheegaya in ugu yaraan 12 qof oo rayd ah lagu dilay deegaanada ay Kurdiyiintu ku badan yihiin, halka saraakiisha dawladdu ay soo sheegeen 9 qof oo rayd ah oo ku dhintay degmooyinka ku hareeraysan. Tobanaan kale ayaa la dhaawacay. Dagaalkan ayaa yimid iyada oo hakad ku jiro wadahadaladii u dhaxeeyay Dimashq iyo ciidamada dimuqraadiga Suuriya. Inkastoo heshiis la saxeexay horaantii sanadkan si loogu daro ciidamada SDF ciidanka Suuriya dhamaadka 2025. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa Khamiistii ku soo dhaweeyay wasiirkii arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi magaalada Addis Ababa isagoo oo ku yimid safarkii ugu horeeyay ee diblomaasigu uu ku tagay Afrika sanadkan cusub. Labada hogaamiye waxa ay ballan qaadeen iskaashi qoto dheer oo ku saabsan arrimaha ay ka mid yihiin ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta iyo gaadiidka, sirdoonka iyo tamarta cagaaran. Haddaba Ra'iisul Wasaare Abiy oo Twitterka soo dhigay qoraal ayaa yiri sida tan, taasoo sii xoojisay isku soo dhawaanshahan iyadoo loo qaaday iskaashi istiraatiiji ah oo dhammaan cimilada ah. Waxaan soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Master Wang Yi, waxaanan ka wada hadalnay iskaashi waara oo u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo Shiinaha, arrimo badan oo ku saabsan iskaashiga, ballanqaadka aan wadaagnay ee ku aadan horumarinta. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay iskaashiga qotada dheer oo ah ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta iyo gaadiidka, sidoo kale faa'iideysiga suurtagalnimada iskaashiga meelaha soo koraya sida ganacsiga elektarooniga ah, dhaqaalaha dhijitaalka ah, sirdoonka iyo tamarta cagaaran. Boqolaal dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay Muqdisho habeenkii Khamiista si ay u cambaareeyaan aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland, iyagoo ku dhawaaqayay heeso wadani ah iyo calanka Soomaaliya oo muujinayay midnimo. Dad dibadbaxayaal ah ayaa sheegayay in tallaabadani ay halis ku tahay madaxbannaanida Soomaaliya iyo midnimada dhuleed. Somaliland waxa ay ku dhawaaqday madaxbannaanideeda 1991, laakiin weligeed dalna hore uma aqoonsan. Waxaan ka mudaharaadaynaa kala goynta iyo qaybinta dalka, ayuu yiri dibadbaxe Siciid Geedi. Tani waxa ay ka soo horjeedaa madaxbannaanida dalka, waxaana rajaynaynaa in Soomaaliya ay midowdo, ayuu yiri. Dibadbaxyadan ayaa ka dambeeyay booqasho uu dhowaan wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil uu ku tegay caasimadda dalka Somaliland ee Hargeysa. Dadkii hadlay iyo dibadbaxayaashuba waxa ay ku nuuxnuuxsadeen aqoonsiga, dhaqanka iyo taariikhda ay wadaagaan, iyaga oo diiday isku day kasta oo lagu doonayo in lagu qaybiyo Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku xoojiyay fariintaas khudbad uu telefishinka ka jeediyay, isagoo oo sheegay in Soomaaliya aan la qaybin karin. Waxaan rabaa inaan
mar kale caddeeyo in jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay waddan madax bannaan oo midaysan, ayuu yidhi, isagoo intaas ku daray in go'aan kasta oo ay qaadatay Israa'iil uusan wax ka bedeli karin dhulka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysanaysaa in Somaliland weli ay tahay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya, waxa ayna uga digaysaa in aqoonsiga Somaliland khalkhal gelin karto Geeska Afrika. In ka badan 20 waddan iyo ururka iskaashiga Carabta iyaga oo diiday tallaabada Israa'iil, inkastoo dhowr dal oo muhiim ahi ay ka aamuseen codbixintii la qaaday. Halkaa waxaa inoogu dhan wararkii aan idin soo gaarsiinayay toddobaadkani.